السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan. xog sira oo la helay oo muujinaysa Iiraan iyo awlaadeeda inay qorsheynayaan weeraro waaweyn inay ka furiyaan bariga dhexe oo ay ku jiraan inay jaraan oo ay weerar ku qaadaan fiilooyinka internetka ee badda hoosteeda mara. haddaba qorshahan iyo qaabka ay Iiraan u damacsan tahay oo la soo ogaaday ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. xuutiyiinta oo la sheegay saakay 5 gantaal inay ku dhufteen Bab al-Mandab talow yay la dhaceen. xaaladda wararkii ugu dambeeyay weerarka ay xuutiga ku qaadeen Bab al-Mandab iyana waan idin hayaa. ra'iisul wasaaraha Pakistan oo markaa soo dhaweeyay hadal uu qoray madaxweynaha Mareykanka kaasoo uu ku soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan ay sida wadajirka u gaareen Turkiga, Pakistan iyo Saudi Arabia. dhowr qodob oo muhiim ah oo wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnaynayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. haddaba warka ugu weyn ee saaran warbaahinta ayaynu barnaamijka ka bilaabaynaa. haddaba waxaa la sheegayaa Iiraan iyo awlaadeeda gobolka bariga dhexe inay la maagan yihiin weeraro halis badan oo ay ku qaadi doonaan maraakiibta Mareykanka, dekedaha khaliijka ku yaala iyo xitaa fiilooyinka keebalada badda hoostooda la marsiiyo ee internetka si ay caalamka iyo wadamadaas oo dhan u kala jaraan. haddaba xogtan ayaa waxaa ogaaday sida la leeyahay sirdoonka Mareykanka. waxay sidoo kale ogaadeen in Iiraan aysanba ku tashanayn nabadda hadda jirta, nabadba uma aragto. Iiraan waxa ay qorsheynayso oo ay ka shaqeynayso waxaa lagu leeyahay waaba dagaal iyo taatikadii ay mar kale afka ciidda ugu galin lahayd macalinka weyn iyo xertiis. haddaba marka wararkii ugu dambeeyay arrinkan laga qoray ayaynu idinla wadaagaynaa. wargeyska weyn ee yiraahdo Al-Qudus ayaa saakay wuxuu qoray warbixin xasaasi ah oo arrinkan ku saabsan. wuxuu soo xiganayaa wargeyska weyn ee Mareykanka ee yiraahdo Wall Street Journal. Tahraan waxay ka fakaraysaa oo ay markaa ka baaraan degaysaa inay markaasi samayso doorasho cusub oo ku saabsan sidii ay u bartilmaameedsan lahayd keebalada ama fiilooyinka internetka ee badda hoosteeda maraya, iyo sidoo kale inay qaado weeraro dhinaca dhulka ah oo dalal ku yaala halkaas ay ciidamada Iiraan ku qaadi doonaan weerar dhulka ah. haddaba arrintan ayaa waxay dhibaato iyo walwal ku abuurtay iyo buuq ka dhalisay gudaha wadamada khaliijka. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa la leeyahay wargeyska Wall Street Journal ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in hoggaanka Iiraan uu isu diyaarinayo in markaasi uu sii kordhiyo dagaalka ay kula jiraan Mareykanka iyo xulufadiisa gobolka. halkii uu ku tiirsanaan lahaa heshiis is-afgarad ah oo hadda macno weyn aan ku fadhinin ayaa waxaa la sheegay heshiiskan in la gaaray bishii Juun laakiin uusan luga badan ku taagnayn. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan warbixin ay soo saareen mas'uuliyiin kala duwan. wargeysku wuxuu soo xigtay mas'uuliyiin reer Iiraan iyo kuwo dalalka Carabta ah, waxaana la sheegay in Tahraan ay isticmaashay muddadii xabad joojintan kooban ay socotay inay markaasi ka shaqeynaysay horumarinta iyo ballaarinta awoodaheeda militariga iyo hanaanka difaaca gantaalaha iyo weliba gantaalaheeda weerarka ah iyo diyaaradaha droniska ah. haddaba sida laga soo xigtay mas'uuliyiin aqoon u leh sirdoonka dhankiisa hay-adaha Carabta ayaa waxaa la sheegay in markaasi dhanka isgaarsiinta ay ka ogaadeen in awlaada ama maleeshiyada la leeyahay awlaada Iiraan iyo Iiraan ay markaa xiriiro aad u badan ay yeesheen maalmihii la soo dhaafay si ay weeraro wadajira ama loo kala qaadan lahaa qolo walba halkii ay ku wajahnaan lahayd. waxay la hadashay Iiraan, Yemen, Ciraaq iyo Lubnaan. haddaba wargeysku wuxuu xusay in Iiraan ay joojisay markaa ay xoojisay goobaha gantaalada dhanka badda
iyo weliba cirka intaba. haddaba sida laga soo xigtay warbixinta, Tahraan waxay sidoo kale kordhisay ayaa la leeyahay weerarada ay markaasi ku qaadi doonto ciidamada Mareykanka, bartilmaameedyada ay samayn doonto. waxaana la sheegay inay sidoo kale weerari doonto dekadaha dowladaha khaliijka. haddaba wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in Iiraan iyo awlaadeeda ay aad uga shaqaynayaan inay markaasi isku shaandheeyaan jagooyinka, in Iiraan dhowaan ay isku shaandhayn ku samaysay jagooyinka hoggaanka ciidamada, taasoo Ayatullahi Mujtaba Khamenei la sheegay inuu uga jeedo isu diyaarinta dagaal baaxad leh oo ka dhaca gobolka. haddaba sida laga soo xigtay warbixinta, ciidanka ilaalada kacaanka ayaa ka fakaraya inay markaasi doorashooyin cusub ay markaasi samaystaan oo ay ku jiraan in la bartilmaameedsado fiilooyinka internetka ee dhulka badda hoosteeda maraya, kaasoo haddii ay dhacdo weeraradaasi khatar badan gelin kara xiriirka caalamka iyo dalalka khaliijka. haddaba mas-uuliyiinta warkan laga soo xiganayo ayaa waxaa ka mid nin la yidhaahdo Alan Ayre oo Mareykanka u qaabilsanaa la socodka hanaanka nuclearka Iiraan. joornaalka Wall Street Journal ayaa soo markaasi gabagabaynaya in Tahraan ay u aragto marxaladda hadda lagu jiro xilli loogu diyaar garoobayo dagaal ballaaran inay qorsheynayaan dhinacyada dhanka awlaadeeda iyo Iiraan, halka la sheegay in wadahadalladu aysan ahayn kuwo markaasi wax badan hadda ka taray heshiis in laga gaaro xiisadaha taagan. marka warbixinta saaka waxaa qoraya oo laga soo xiganaya joornaalka la yiraahdo Wall Street Journal ee Mareykanka. wuxuu leeyahay Iiraan iyo awlaadeeda faa'iido weyn ugu jirta xabad joojinadan hadda jira. waxay dhiseen ciidankooda, gantaalahooda, waxooda. dhanka kale sirdoonku wuxuu ogaaday inay aad u xiriirayaan maalmihii la soo dhaafay Iiraan iyo awlaadeeda, hadday tahay Lubnaan iyo Ciraaq iyo Yemen. waxaa laga shaqaynayaa qorshayaal waaweyn. Iiraan waxay ogtahay inuusan meeshan wax heshiisa imaanayn oo dagaal uu marka dambe faraha la iskaga guban doono, sidii loo weerari lahaa maraakiibta Mareykanka badda daadsan, dekadaha wadamada khaliijka iyo xataa fiilooyinka internetka ee badda hoosteed mara ee adduunka ku xiraa wadamada bariga dhexe. marka sheekooyinkan oo dhan muhiimadooda marka waxaa leeyahay waxaa laga ogaaday sirdoonada Mareykanka, sirdoonkiisu waxay ogaadeen in arintanu ay tahay marka arrin dhacaysa oo qorshaheedu Iiraan iyo awlaadeedu ay wataan. meesha marka waxaa leeyahay wax nabad ah oo ka soo socda ma jiraan. marka sheekadaas kolley waa arki doonaa, waana wax muuqda marka la fiiriyo. meeshan heshiis hadda lagu kala joogo ma jiro. Mareykan markuu rabo weerar qaadaa, Iiraanna markay rabto weerar qaadaa. wax heshiis oo rasmi ah oo hadda maanta heshiiskaas qolo walba qabanaya la leeyahay ma jiro. marka qolo walba isdiyaarinay ku baqanta. marka maxay tahay ma la isday doono. warka kale muhiimka wuxuu yahay goor dhaweyd war degdega ayay Al Jazeera qortay ay leedahay Xuutigu waxaa la sheegayaa 5 gantaal inuu ku dhuftay Bab al-Mandab, gantaalo plastic oo badda loogu talagalay. marka 5 gantaal ayaa badda ku dhacday. macnaha gantaal in la iska rido biyaha badda ma la isaga dhufaraa may shaqo qabanaa gantaalka kulli maraakiiba la qararamsaday waxay yihiin wali lama oga. haddaba marka aad tusoo wararkii ugu dambeeyay, warbaahinta Yemen ayaa waxay ka hadlayaan goor dhaweyd waliba kuwa xukuumadda Yemen waxay sheegayaan in Xuutigu uu ku riday 5 gantaal Bab al-Mandab inuu ku dhuftay. haddaba warbaahinta Yemen ee taageera xukuumadda Yemen ayaa sheegay jamaacada Ansaarullah Xuutiyiinta inay arkayeen inay 5 gantaal ku dhufteen nooca plastic la yiraahdo deegaanada badda ee dhanka Bab al-Mandab. marka waa arkaysaa. marka waxaa leeyahay warku marka waa cusub yahay. 5 gantaal oo plastic ah ayaan u jeednay leeyihiin nimankaasu badday ku garaaceen. kollay waxbaa la qararamsaday, ma Sacuudiga qolo u socotay ama ka timid ama maraakiib Sacuudigu leeyahay miyaa la qararamsaday lama yaqaano.
marka halkaas waxbaa ka dhacay leeyihiin shanta gantaale xuutigu halkaa ku dhuftay dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu muujiyay inuu taageero u hayo heshiiskii dhawaan ay galeen Turkiga Pakistan iyo Saudi marka waxaa la isweydiinayaa meeqa maalin ka soo wareegtay heshiiska toddobaad ka soo wareegtay ku dhawaad toddobaad ku dhawaad ayaa ka soo wareegtay muxuu uga hadli waayay wuu aamusnaa intaas wax jawaaba ma bixinin hadduu marka soo qoraa la leeyahay waa heshiis wanaagsan waa in la iskaashado waxa soo qoray marka isla markii marka uu soo qoray heshiiskan taageeradiisa waxaad mooday Pakistan inay aad u sugaysay taageerada Mareykanka war muxuu u hadli laayahay Trump isla markii marka waxa ka soo jawaabay ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan haddaba marka telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan iskaashiga Sacuudiga iyo Turkiga dhanka difaaca gobolka ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sheegay in waddankiisa uu iskaashigaasi sii wadi doono iyo heshiiskaasi si markaa wax looga qabto xiisadaha ka jira gobolka haddaba hadalka Sharif ayaa wuxuu ku soo beegmayaa war uu ku qoray bogga Twitter-ka ninka la leeyahay Donald Trump kaasoo markaa kaga hadlayay heshiiskii Makka ee difaaca wadajirka ah Trump wuxuu ku tilmaamay inuu aad u qadarinayo heshiiskaas wuxuuna sheegay inuu taageerayo munaasabadii lagu saxeexay heshiiskaasi ay wada saxeexdeen Pakistan Sacuudiga iyo Turkiga way marka ninka marka ra'iisul wasaaraha Pakistan wuxuu leeyahay waa maadsantahay Trump hadduu soo hadlay sheekadu marka waa fiicanta marka Trump wuxuu leeyahay wax dhiba ma arko heshiiskaas nimankaas ay galeen hawshiina watuulay laakiin waxa ka soo wareegay toddobaad ku dhawaad marka luga u laaban odaga caadi ma Soomaalidu waxay dhigi jireen hebel ma aragtaa luga u laaban macnaheedu waxa baashu ka shakisay marka hawshaas halkaas ay maraysa haddaba qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa xaaladaha magaalada Gaza ka jira haddaba Mareykanku waxay aad u dareynayaan in heshiiskii la sii wado Gaza Israa'iil ay ka baxdo Gaza Hamasna ay hub ka dhigto marka laba xujo waaweyn marka meesha taala Hamas waxay leedahay hubka waa dhigaynaa dhib male Israa'iil ciidankeeda dhanaca ka qaadato meesha marka hore Israa'iil maxay leedahay waa baxaynaa marka hore hubka ha dhigaan Hamas marka sheekadii jiqay isku noqotay Trump marka wuxuu soo diray wiilka uu sodog u yahay oo maalmahan ku sugnaa magaalada Qaahira wuxuu dhageystay dawladda Masar Hamas wafdigeeda halka jooga masaaridu marka waxay ku yiraahdeen dhageys labadooda waa qolo waa jabhad masaakiin qolana waa dawlad Israa'iil oo hub iyo wax kasta haysata diyaaradaha haysata haddii ay baxdo nimankan hubka dhigi waayeen ma ku laabtaan yaa diiday wax weyn miya laakiin nimankan way shakisay waxay leeyihiin nimanka marka hore nooga baxan dhulkeena kadib aan hubka dhigayna markii sheekadu dhamaato heshiiska la saxo wajiga la loo gudbo marka ninkii marka commissioner aha sheekada uu ku soo qanacay maanta marka wuxuu ka degay Tel Aviv wuxuu la kulmayaa Netanyahu wuxuu leeyahay warniyow nimankan hubka way dhigayaan adi bax marka hore haday diidaan soo noqo marka Netanyahu da heshiiska dhan uu badiidan yahay marmarsiyo taa ka dhiganaya marka sheekadii Gaza halkaas ay hawsheeda maraysaa arida tuso marka wararkii ugu dambeeyay kadib markii wada hadallo miradhal ah uu la soo yeeshay Hamas Kushner oo ah wiilka uu sadaga u yahay Trump wuxuu hadda la kulmayaa Netanyahu si markaa looga gudbo aritan loona galo marxaladda labaad ee heshiiska Gaza in loo gudbo marka ma ogolaan doona Netanyahu mise ma ogolaan doono waa hawl kale laakiin dadka badankiisu waxay leeyihiin Netanyahu heshiiska dhan uu sanba ogoleen tanna marka marmarsiyo ka dhiganaa heshiiska kaga cararo ninkii Ben Gvir isaguna maanta hadlay oo arin yaab la sheegay wuxuu yiri waxaan soo celinaynaa habeen kasta inaan Gaza ku dilno 30 ilaa 40 qof kula marka waa un iska hadlaya asaga iyo kii kale iyo waa iska dad iska wareersan waay marka qodobadaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta Isniina haddii alla idmo wixii kale oo akhbaarada ee soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa meel kasta aad joogtaan la gareeyo oo share gareeyo barnaamijka asxaabay waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo